macaamiisha maalgashiga ku sameysay shirkadda online-ka ee Future Trade ayaa maanta banaanbax ka sameysay bartamaha magaalada Muqdisho. Banaanbaxaas oo ay uga cabanayeen xiritaanka ay xirtay dowladda federaalka Soomaaliya shirkadda maalgashiga ee Future Trade, waxayna madaxda kala duwan ee dowladda Soomaaliya ka codsadeen in hantidooda xayiraad looga qaado. Waxayna sidoo kale si faahfaahsan u cadeeyeen in maamulka shirkadda Future Trade ay u sheegeen in hantidooda ay u hayaan, balse dowladda ay ka dalbadeen in cadaaladu shaqeyso. ay ka cabanayaan dawladda khaas ahaan qaybta macnaha economiga oo dhaqaalaha sida bankiga dhexe iyo sida ma garanaysaa booliska oo kale hadda xataa inaan wax duubno way noo diideen. xabad baa nagu dul socota, dadka dhammaan way wada kala cararayaan. marka annaga waxaa u nimid meesha lacagtanadii oo Future Trade ay naga qaaday oo ay nagu shaqeynaysay ayaa dawladdu waxay ku tala gashay inay macnaha lacagtaas iyo shaqaalaheeda iyo macnaha bulshadii kala labadaba caburiso. marka waxaan ka codsanaynaa qolyaha shaqada haye oo Future Trade waxay dhahay anagu wixii diyaar aan lanahay, laakiin dawladda ku dhagan. dawladda marka waxaan ka codsanaynaa ayadii intii badbaadin lahayd oo shacabkeeda iyo masaakiinteeda iyo agoonteeda iyo dadkeeda u hilin lahayd inay maanta ayadii ka heliso oo lacagteedii tiraada annagana lagu soo wareejiyo. annaga macnaha qaadanayna annaga qaadanayna waa moogtahay mar haddii lacagtana lagu soo wareejiyo qofkii loo dhibtay adiga mid annaga qaadanayna waa. marka waxaan ka codsanaynaa in ay naga joojiso qalalaasaha iyo buuqa ay dadka ku wado. dadka lacagta dhigto waxaa ka mid ah agoon, masaakiin, xataa baalash la ku jira qofka macnaha caseeyaha. marka waxaan ka amiisha shirkadda Future Trade markiilihii weynaa ee shirkadda waa la xirtay, dawladda uu gacan jiraa. anaga xoolaheena maanta meesha ugu taagannahay faa'iido walaalafo. anaga dawladda waxaa rabnaa inay noo cadayso ma ayagii baa haysta lacagtayni mise shirkaddaana haysata hanoo kala cadayso. anaga lacagtayni yaa rabnaa. anaga maanta haddee Future qasaarta halkaasaa ka baxaynaa. anaga qasaarihii faa'iido marka hore waa ku wada galnay, laakiinse anaga dawladda waxaa ka codsanaynaa in ayna siiso annaga ninkii noo haya milkiilaha hadday rabto markii xoolaha inay siiso ha ceshato hadday rabto. anaga waxaan rabnaa lacagtayni. dad agoona lacag meesha kashtayn, dad yaanyo gadaaya caano gadaaya lacag kashtayn. anaga wax ma haysano, wixii aan haysano halkaana ku shubnay. dawladda ma cunu qabatayna nagu haysaa mise anaga xoolahayni ay rabtaa inay maxay hanta beebeen ugu martay. hanti baa naga maqan. hantideenni waxaan dhiganay Future Trade. maamulka shirkadda waxaan noola sheegay in uu xiran yahay. waxaa annaga naga maqan hanti. shirkado badan oo forex oo goostay waa ay jiraan. haddii la goostay annaga waxayna waa ka sabri lahayn oo waa ka tagi lahayn. maamulka shirkadda iyo dhammaan shaqaalihii shirkadda waa nala joogaan. waxa naga maqan waa hanti. maamulku waxay leeyihiin hantidiina ma aysan lumin, waa haynaa. hantidiina ma aysan qasaarin, gacanteennay ku jirtaa. waxaana haysta dawladda, khaasatan nin lagu magacaabo Saadiq John iyo gabadha la yiraahdo Aamina. waxaan codsanaynaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxaan ka codsanaynaa in ay hantideenna noo soo fasaxaan. annaga dad masaakiin oo shacab aan nahay, gaari gacan la yaalaan nahay, masaakiin aan nahay. hantida meesha waxaan u dhigannay inaan wax faa'iido ah ka helno. faa'iido inaan ka helno ayaan u dhigannay. ma aha dawladdeenni inay annaga nagu tumato. waxaan codsanaynaa annaga hantideenna in noola badbaadiyo. haddii Future shirkaddeenna ay ku maqan tahayna annagaa ka raadsanayno. waa inay dawladda noo cadaysaa, bayaan cad ay noo keentaa. Rahmaan Rahiim. markuu horeys waxaan halka ka salaamay madaxweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir, ra'iisul wasaaraha Cali Khayre. waxaan ka codsanaynaa nimanka naga xirno Future shirkaddan u xiran inay ayaga haystaan iyo inayna haysan. labadaas horta annaga ma cadayn karna, laakiin waxaa noola soo sheegay inay u xiran yihiin nimankan dawladda. annaga waxaa naga maqan xoolahayni. dawladda xoolana ma siiso. shacabaan nahay. shacabkayna waxaan u jiribanay shacab. lacagteena waa noolagu shaqeeyahay, waa qaadahaynay. lacagteena meesha nooga jirtaa. hadday dawlad jirto, hadday inay garabna siiyaan. maxaan ku cudur ajira la leeyahay. cudur uma jeedno. lacagteena naga maqan. dawladda sharafta la gacanana siiso. maanta oo qoraxdan taaganahay waa nala xabadaynooya, xabadaan nagu kor socoto. hana laga qabto xoolahayna hana la siiyo. waxaa haysta ninka hebel John ala sheego aniga ma aqaane. Saadiq John iyo naagta bankiga u shaqeysa ma aqaan iyo Aamina hebel iyo gabadha bankiga haysato. xoolaha muslimka waxay ogaataa xoolaha goomeeda ku jiro. shirkadda waa shirkadda ugu fiicneed. xoolahayna hana siiso. si kastaba ha ahaatee isu soo baxaan macaamiisha shirkadda online-ka ah ee Future Trade ayaa soconaya maalintii 9aad oo ay ka dhigayeen gudaha magaalada Muqdisho. banaanbixii maanta ayaa in badan ka duwanaa banaanbaxyadii hore oo ay sameynayeen macaamiisha shirkadda Future Trade, waxayna hoosta ka xariiqeen in shirkadda aanay dacwo ka ahayn kuna qanacsan yihiin adeegyada ay u hayso. Maxamed Amiin Cabdirasaaq Aadam, Bulsho TV, magaalada Muqdisho. كنا جادا تو حياة ودفيسة لما